waxaan rabaa marka horeeto inaan ka hadlo dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari isla markaana ah caasimadii ganacsiga ee dawladda Puntland. waxaan rabaa in hadalkayga ku bilaabo oo runtii aan la qaybsado murugada iyo tiraayada eheladii iyo asxaabtii ay ku geeriyoodeen wiilashoodii halkaas ugana tacsiiyo runtii dadkii halkaa ku dhintay. inta dhaawacana Ilaahay waxaan weydiinaynaa in Ilaahay uu u boogadhayo. intaas kadib waxaa nasiib darro ah in xukuumadda Puntland oo runtii mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay dadkan iyo shacabkan iyo dadka ku nool deegaanada Puntland inay hor istaagto dadkii u soo gurmaday oo runtii mas'uuliyadda iska saaray oo xilligan adag oo dadka runtii abaartu ay saameysay inay hor istaagto oo ka hor istaagto inay magaaladoodii iyo deegaankoodii wixii ay u heleen ay u keento oo soo gaarsiiso. waa nasiib darro. waxaan la soconnaa ilaa iyo hadda dawladda Puntland ama xukuumaddu gaar ahaan inaysan dadka u gurman oo xal booyadna aysan gaarsiin deegaamada abaaruhu aadka uga jiraan. marka iyadoo dawladdu xukuumaddu roolkeedii gabtay inay hor istaagto dadkii mas'uuliyiintii ummadda Soomaaliyeed ee u soo gurmanayay runtii waa nasiib darro. waxaa kaleeto mushkilada ah oo runtii waddankan waxaa ka jira golayaal iyo dad la isdoortay. madaxweynihii dalka waa ka maqan yahay, madaxweyne ku-xigeenkii baa jooga oo dastuuriyan isagoo awoodaha markuu madaxweynuhu dalka ka baxo iska leh in madaxweynuhu uu dalkii dibadii ka maamulayo. runtii iyadana Puntland nasiib darray ku tahay 23 sano iyo 24 sano dhismaheed iyadoo laga joogo inay noqoto wax hal qof jeebkiisa ku jira oo dalka dibadiisa laga maamulo. taasna waxaa cadeynaya in madaxweyne ku-xigeenkii oo hawshii shaqadii gacanta kula jira oo isagu amray inay diyaaraddu soo degto laga hor istaago oo ciidamo lagu dalbo. ciidamadii loogu talagalay inay badda ka shaqeeyaan ee loo adeegsaday inay dadka bariga kula dagaalamaan. runtii waa nasiib darro. magaalada Boosaaso intii xukuumaddan jirtay dhibo badan baa ka dhacay, ciidamo badan baa la geeyey, dad badan maata baa lagu barakiciyey. hadda ka hor baa waxay dadkeedii culays iyo ciidamo iyo dagaalo laga dhex sameeyey. marka xukuumadda waxaan u baaqayaa waqtiga yar oo u harsan magaalada inay nabad u deyso haddaysan inteeda wax ugu darayn. waa mahadsantihiin. waxaan salaamayaa xildhibaanada saaxiibada iyo halkaan aanu shir saxaafadeedka aan ku wada qabanayno. bacda salaan waxaan caawa halkaan isugu nimi inaanu ka tacsiyeyno waxna ka nidhaahno dhacdadii foosha xumayd ee maanta ka dhacday magaalo xeebeedka Boosaaso oo caasimadda ganacsiga Puntland, taasoo ay maanta timi diyaarad ka timi dowladda federaalka ah oo ay waday xildhibaanad Sacdiyo ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka. waxaa halkaa ka dhacay arrin aan munaasib ku ahayn dowladnimada oo Puntland aan maanta laga filanayn inay dhacdooyinkaas oo kale ay soo noqnoqdaan. Soomaalida waxay ku mahmaadaa faal caytamay looma xilqariyo. dhacdadaasi waxay ka dhacday xukuumadda, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo marar badan khilaafkooda soo noqnoqday oon ku dhaqmayn dastuurkii iyo wixii la dhigtay oo mararka qaybtood marar badan gar laga galay ummadana mar walba ku soo celiya inay iyagu ay heshiis yihiin. waxaas ay khilaafaadka ay ka heshiiyeen tii ugu dambeysay hadda oo waxa weeye xilligii doorashada madaxweynuhu uu amar ka soo bixiyay Muqdisho oo dhacdooyin badan oo khalkhal geliyay Puntland ay ka dhaceen. maantana isagoo dalka ka maqan ay dhacdooyinkaani iyo amaradan khaldani ay ina ku dhaceen. aad iyo aad baan u dhaliilaynaa, aad iyo aad baan u cambaaraynaa. waxaan leenahay wax maanta la filayay maaha. waxaan kaloo rabaa in halkan ka sheego madaxweynuhu waa madaxweyne Puntland
haddana waa nin reer bariya markii uu imaanayay xilligiisii doorashada airboorkaas Boosaasood buu ka soo degay codkiisi waa duwan yahay aaway Boosaaso lahaa waxaa nasiib darro noqotay in 3 sano iyo barkii uu joogay Boosaaso ay gaartay meel ay weligeed gaarin oo ciidamadii Puntland la dagaalsiiyay oo wixii khayr u keenayaba laga hor istaagay wad la socotaan inuu dhacdooyinka ugu horeeyay waxa lagu xirxiray culimadii Puntland oo xabsi loo geliyay iyaga oo arrin samafal ka shaqeynaya oo raba inay laamiyada Puntland oo jajabay waliba magaalada gudaheeda ay dhisaan taasi waxay geeysiisay maanta inaan dadka abaarta iyo dhibaatadu haysato oo reer Puntland culimo afka kala qaada iyo waxa weeye wax u qareemaba la waayay maanta marka waxa muuqata wixii Ilaahay ummadaha kale ka keenayay oo dadku ay qof walba oo mas'uuliyad saaran tahay isku soo tiiray sida maanta waxa yar oo ka yimi heer federaal laga hor yimi hadda ka horna waxa weeye waxyaalo badan oo dadka waxa weeye qurbo joogta reer Puntland ay ku soo deeqeen oo ay kamid ahaayeen lacagihii loo ururiyay daadadkii qardho iyo waxa weeye dadka badan ku naafoobeen dhaqaalihii loo soo ururiyay inay wali waxa weeye maqan yihiin oo gacanta xukuumadda ku jiraan oo marar hore aan sheegnay oo wax loo sii hayn karo ama wax maanta ka dameeya oo loo kaydsan kara aysan jirin ahayd in ummadda loogu gargaaro waxaan leenahay marka dhacdooyinkaasi waa dhacdooyin fool xun waxayna dhammaantood ka imaanayaan in mas'uuliyiintii dadka waxa weeye loo doortay waxa iyaduna nasiib darro ah dhacdooyinka ciidanka la dagaalsiinayo halkan waxaan ugu baaqayaa ciidamadu inay arrinta ka waantoobaan waxa ku dhimanaya waa walaalka waa kugu dhimay ka dhimay waa wax fool xun dhacdadii shalay dhacday oo Boosaaso ka dhacday oo ciidamada la dagaalsiiyay oo dad shacab oo farabadan ku dhinteen wali xukuumadda hadii loo soo gudbiyay dadkii dhintay iyo ku dhaawacmay iyo hantidii ku burburtay wax feedback oo ka soo noqday ilaa in la qayb maahay ma jirto marka ciidankan waxaan leeyahay arrintaas dagaalsiinta oo walaalaha diriraya ah waxa weeye waxaan leenahay ka waantooba oo waxaasi way soo noqdeen waxaan kaloo ku darayaa waxa la yaab iyaduna federaalku Soomaaliya waxa weeye Puntland waxa la oran jiray waa hooyadii federaalka marar badan waxa muuqata inaynan ka soo noqon waxa weeye la dagaalanka dawlad walba aan waxa weeye dhex maraya waxay marka ku salaysan tahay markaan hadda aan qiimeeyo waa caro shakhsi loo qabo oo lagu xalinayo mas'uuliyad badan oo waxa weeye ummad badan ay ku waxyeeloobayso taasna waxaan leeyahay waxaynu u baahanahay maaha in ummadda waxa weeye loo turo weeye in wax badan laga tago weeye in wax badan la laqo weeye sidii mudanayaashii iga horeeyay ay sheegeen annaga ka baarlamaan ahaan intayadani hadda waxa weeye mudanayaashii gobolka bari laga soo doortaanahay insha Allah waxaanu gaarsiin doonaa golaha aanu ka tirsanahay iyada ayaa markaas insha Allah ay ka soo bixi doonaan wixii la xisaabtanka maanta noo furan kaga aadan iyo cid walba iyo mas'uuliyadaas iyo waxay ka qaadan lahayd aad iyo aad baan uga tacsiyeenayaa dhacdada meesha ka dhacday intii ku dhimatay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantay Allah u booga dhigo dadkii waxa weeye walaalaha halkaas maanta ku waxyeeloobay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan ka tacsiyanayaa wixii ka dhacay maanta magaalada Boosaaso airportkeeda oo ay laba ciidan oo ka tirsan dawladda Puntland ay isku dirireen halkaasna oo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen intaas kadib horta waxaan rabaa inaan ka hadlo intaan taa u gudbin xaaladda Puntland ay ku sugan tahay maanta abaarta ah runtii meel walba aad maanta u baxdo garowe hadda aan joogno iyo Boosaaso iyo guud ahaan gobolada Puntlandba abaar aad iyo aad u daran ayaa ka jirta abaartaas oo jirta awgeed dawladda Puntland hal activity ama hal gacan ama hal waxqabad ay ka geysatay runtii maana arag marka in ayadii dawladdiina ay waxba dadkii u qaban oo aysan waxba gaarsiin cidii isku dayday inay wax gaarsiisana ay ka hor istaagayso taas runtii waxaan maleynayaa waa caqabad weyn Soomaalidu waxay dhahdaa dhuugu geedaha ma cuno geelana ma ogola inuu cuno marka
dadkii Puntland inaan abaartii looga gargaarin oo wixii loo tari kara aan loo tarin ciddii wax u taraysana aan laga hor istaagin taas waa caqabad weyn oo xukuumadda Puntland runtii ay sameynayso arrintan diyaaradan la hor istaagay oo u waday dadka mucaawano inta doonto hal ekaato runtii waa arrin culeyskeeda leh oo de maantay meel un bay gufeyn lahayd sadaqadu yaryaraysi ma lahan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tasaddaqu walaw bishiqi tamra sadaqaysta haba noqoto gobol timira wanaaguna sidiisaba yaryaraysi ma leh sidoo kale nabigu wuxuu yiri la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wixii wanaag aad sameynaysid yaryaraysi iyo malahan marka in la hor istaago wanaagaas iyo sadaqadaas dawladda federaalka ay soo gaarsiisay Puntland gaar ahaan gudoomiye ahna kusimaha madaxweynaha dawladda federaalka Saadiyo in la hor istaago waxa aragnaa caqabad dhinaca kalena waa gabar muwaadinad Puntland xaq way u leedahay wadankeeda meeshii ay rabtoba inay u gurmato wixii ay wado karaankeeda ay geyso shalay garaway keentay dhibaatooyin mushkilad kama dhicin maantana booso waxa rabsaas oo kale inay ay geyso wixii ay awooday gobolada Puntland oo kalena ay saas kale u geyso marka waxaan u maleynayaa in xukuumaddu ay dadka shacabka Puntland ay rabto inay rahmad ka dhigato wixii maamul xumadeeda iyo dhibaatadeeda wax ku yeelo ma ahan wixii kale runtii inay xabad u adeegsato inay qorshe ka dhigatay marka taas waxaan leenahay inay ka raali geliso wixii meesha ka dhacay dadka horeyna dhibaatooyinkaas kala uga dhacay annagu haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda bari guud ahaanna xildhibaanada Puntland runtii arrintan go'aan ka tirsanaa golahaas waan geenaynaa dhibaatadaas wixii aan go'aamo aan ka saari karno wixii aan dhihi karno insha Allah ka dhahaynaa si guudna dadka waxaan u tacsiyeenaynaa in dhibaatadan guud abaarta inuu Ilaahay ka saaro wixii wanaagana insha Allah u rajaynaynaa wabillahi tawfiiq intaas uga baxaya أولاً waxaan uga tacsiyeenayaa hawshii maantay Boosaaso ka dhacay dadkii ku dhintay intii ku dhaawacantana waxaan leeyahay Allah u boogadhayo arinta maantay Boosaaso ka dhacday arin maanta la filayay ma ahayn 23 sano oo Puntland jiday in maantay magaaladii ganacsiga magaaladii 1 milyan oo qof dad ku nool yihiin magaaladii ay dekadii ku oolay ganacsiga in maanta ay ka dhacdo hawshaasi aad baan uga xunahay inta kadib waxaan aad haddana uga xumahay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Soomaaliyeed Marwa Saadiyo Xaaji aad baan iyadana arintaas la qaybsanaynaa anagoo u hayna ixtiraam iyo respect iyadoo shacabkii laga soo doortay iyo deegaankii ay ka soo jeeday ay istiri u gargaar oo wixii aad u qaban ka dhaho oo baahiya inaad gaarsiiso horena u soo gaarsiisay magaalada caasimadda ay Garowe maantana ay gaarsiisay rabtay inay gaarsiiso magaalada ganacsiga Boosaaso aad iyo aad baa ugu mahadsantaan leeyahay laakiin waxa dhacay waa wax laga xumaado ciidamadii dawladda oo amniga sugayay in maanta ay ku dhimtaan tiro aad u badan tiro kalena ay ku dhaawacanto wax meesha laga filayay ma aha haddaanu nahay shacab weynaha golaha shacabka ee Puntland gobolka bari gaar ahaan oo maanta mudanayaashu caaw halkaan ku fadhino hawshaasi guud ahaan iyo gaar ahaan ka tacsiyeenayna mana ayaan ahayn inay saas wax u dhacaan waxaan kale oo ummadda shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa insha Allah abaaraha iyo hawlaha jira iyo sicir bararka in la isu gargaaro in maanta qof walba uu wuxuu awoodo u sadaqaysto maanta wadanku xaaladiisu aad bay u adag tahay waxaan ognahay gobolada Puntland in xataa Soomaaligi uusan shaqayn sicir barar uu jiro waxyaalo badan ay jiraan oo wadanka ka jira xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inta u hadhay wixii hore ka xumaaday waa ka xumaaday inta u hadhay inay si wanaagsan oo wanaagsan hawlkar ay u qabato
insha allahu shacabka boosaasood iyo shacabka guud ee reer puntland khayr baan ugu rajaynayaa in abaaraha allah ka saaraan insha allahu ku ducaynaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. awalan waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa shaqaaqadii ka dhacday maantii gobolka bari magaalada boosaaso oo ah magaaladii ganacsiga puntland. run ahaantii waxaa ka dhacday dhimasho iyo dhaawac fara badan. xaqiiqdii waxaan aad iyo aad insha allah u tacsiyeynayaa intii ku dhimatay, intii ku dhaawactayna allah u boogadhayo. run ahaantii boosaaso oo aynu shalay ogeen wixii ka dhacay, in haddana iyadoo ku jirta boogadhays in haddana maanta taa loogu daro wax la qaadan karo maaha, wax wanaagsanna maaha. run ahaantii waxa weeye labada ciidan ee maantay dirirtu dhex martay waxa weeye ha ogaadeen hal doon baa saaran tihiin, dad walaalaa baa tihiin, waxa weeye gool baa ku wada nooshihiin. xaqiiqdii waxay ku qurux badan tahay ayna tahay inaad fikirtaan oo maskaxda tuujisaan oo aad ogaataan inaad tihiin dad isku meel ka soo jeeda, iimkooduna uu yahay hal meel macnaha difaac kaga jira. xaqiiqdii waa wax aad looga xumaado oo aad looga naxo in maantay oo puntland abaaraha ka jira iyo dhibaatada ka jirta inaad maantay idinkii dib isugu noqotaan mar labaad haddana oo aad islaysaan, waa wax aad looga naxo. run ahaantii cid walba oo ka dambaysa arrintaas waxaan aaminsanahay oo qabaa in lala xisaabtamo, meel kastoo joogaan in lala xisaabtamo. run ahaantii waxa weeye waa dad doonaya puntland inay burburto, inay kala gogoodo. laakiin waxaan u sheegayaa puntland waa jiraysaa, mana burburayso. xaqiiqdii waxa fiican in maskaxda la tuujiyo. waxa weeye waajibaadkeena saarre wuxuu yahay puntland ammaankeeda waa mid ina wada saaran, waana muqadas. mar labaad waxaan u tacsiyeynayaa intii ku dhimatay, intii ku dhaawactayna allah u boogadhayo. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.